shirkan wada taladawka oo suka eedanaya ka jawaabowka gargaarka degdega iyo way boosan dhahay madaxda wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dawlad goboleedyada way banusgeeka ka furmay magaalada Muqdisho kaasoo socdo doona muddo lama maalmood shirkan ayaa boosantii socda diiradda la ka saaro doona arrimo la xiriira fuliyowka mashruucyada ka jawaabowka gargaarka degdega iyo maaraynta masiibooyinka Cabdinaasir Cabdi Aruush waa wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo Suubiin Handhow ay barnaamijkan la kaga waday magaalada Muqdisho waa inuu sheegay intii madaxda wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shaqay doonaan waxaan kaloo aad u mahad celiyay rabaa wasaaradda humanitarianka dawladda federaalka oo run ahaantii fursadan noo qaban qaabisay مشروعنا إلى بلاويسي وقت بدن جلسين وأم هذه علينا شغلة جلسين إلهي مهدي سواي مركنا على في مشروع واضح وقت الله ترجع وحيد قربتك أباريه لبي تونك تضبي تونك لكن وحكسو هذا وقت حالة هذاك ودلك إنه قلا لقيابه أو رواك إنه يجيبون على لقيابه عن تيري إخجست ماله بدن دلك كمذا مركو كفر حسن هاي وقت في عن أو مناسبة وزير ku-xigeenka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Xasan iyo si guud aan faahfaahay barnaamijkan wasiir ku-xigeenka way boosantaasay ka daray intii mashruucan uu siiyay mashruuc hore hangali wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya hadana la baahanyahay intii la dhimaastira mudanayaal marwooyin mashruucan ka jawaabida arrimaha gargaarka degdega ah ee gobolka oo loo yaqaan short term regional emergency response projected stream waxa uu ka yimi mashruucani baahi ka timi bulshadeena aad iyo aad u rafaadsan mashruucani wuxuu soo bilowday taariikhdu markay ahayd 2016 ilaa 2017 mashruucani waxaa ka codsaday bangiga horumarinta Afrika ra'iisul wasaaraha dalka mudane ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre markuu arkay baahiyaha iyo dhibta uu marxaladda uu dalku ku jiro ayuu wuxuu ka dalbaday mashruucan gabagabadii waba meel ku hadalay mudane Xamza Saciid Xamza wasiirka gargaarka maaraynta masiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya oo soo nabagaadi mira dhalka shirkan intii socdo uu soo nasaasoo kala ka tilmaamay mashruucan intii ay kooban qowda doona bulshada Soomaaliyeed laba maalmood oo soconaa waa waqtigan uu gaaban yahay ogsoonaa laakiin waxaan rabnaa inaan juhud fiican inaan gelino soo mashruucan hadduu noo hirgalo waa guul aan wada gaarnay anaga iyo maamul goboleedyada inaan markan ana waxaan rabaa inaan aad ugu bogaadiyo inaan wada shaqeynta aan xoojino saan meeshan u gelneen shirkan waan u furiyay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ibrahim Macalimow TV-ga caalamiga JTV magaalada Baydhabo